waxaan idiin soo gudbinaynaa caddaymaha muujinaya in qur-aanku xagga ilaahay ka yimi. caadi ahaan haddii qur-aanku xagga alle ka yimid waxaa ku sugan mucjizooyin. haddaad akhrido qur-aankana waxaad ka dheehan kartaa xogo sugan aysan suurtagal ahayn in la ogaado 1400 oo sano ka hor. nebi maxamed wuxuu ku noolaa saxalaha dhulka arabiya. berigaas teknolojiyad ma jirin, dadkuna waxay beeran jireen dhulka, waxayna ku safri jireen awrta. qof berigaas hindisay ma jirin qalabka wax lagu baaro. haddana saasay tahay qur-aanka waxa ku jira aayad sheegaysa in badaha dhexdeeda laga helo biyo macaan iyo biyo milix leh, dhexdoodana uu ku jiro xijaab kala ilaalinaya. caalimka weyn ee badaha ku takhasusay ee Jean-Yves Cousteau ayaa waqti dhow ka shafay arrinkan isagoo isticmaalay gujis badda hoosteeda quusa, wuxuuna tijaabooyin ka qaaday biyaha badweynta. yaa ogaan karay 1400 oo sano ka hor inay jiraan xayndaabyo kala ilaalinaya inay isku darsamaan biyaha badweyntu. waxaa ku qoran qur-aanka in koonkiiyo samaawaadka lasii ballaariyo mar walba, xidiguhuna ay sii kala durkaan. sannadii 1920 oo keliya unbaa la ogaaday iyadoo la isticmaalayo aaladda teleskobka ee xidigiska in samadu ay intaasi ballaaranayso. 1400 oo sano ka hor say ugu suurto gashay nebi maxamed inuu arrinkan ogaado. waxaynu ognahay in buuruhu ay yihiin dhidibyo adag oo ay leeyihiin xidido. haddii aysan jirin buuruhuna waxaa mar walba dhici lahaa dhul gariiri iyo masiibooyin joogtaa. waxaana hadda uun la ogaaday in buuruhu ay qayb ka yihiin deganaanshaha dhulka. yaa ogaan karay 1400 oo sano mar kale in buuruhu ay yihiin qaybo ka yihiin deganaanshaha sallaxa dhulka. waxaa ku qoran qur-aanka in ilaahay ka abuuray 7 samaawaad iyo dhulka raqam isku mid ah oo ka dhigan 7. waxaana hadda uun la ogaaday in qalabka dhulka lagu xafaaro markii la isticmaalay in dhulkan aynu ku noolnahay uu ka kooban yahay 7 qaybood oo kala sarraysa oo kala ah maraaska gudaha ee adaga, maraaska kore ee dareeraha, lakabka dahaarka hoose, dahaarka dhexiyo dahaarka sare iyo ugu dambeyn litosfeerka. yaa ogaan karay 1400 oo sano ka hor arrinkan. waxaa kale oo ku xusan qur-aanka in geeduhu ay ka kooban yihiin lab iyo dhidig. baaritaanka cilmiga jinsiga ee geedaha ay u sameeyey Rudolf Jacob 1860 ayaa arrinkan lagu kashifay. nebi maxamed se wuxuu sii ogaa 1400 oo sano ka hor. qur-aanka waxa uu micneeyey marxaladaha kala duwan ee uu maro abuurka oo ka dhigan sida ilmuhu ugu dhex barbaaro raxinka hooyada. Professor Kate Moore oo haysta jaayisada Nobel Prize-ka ee cilmiga abuurka ugxanta ayaa qiray in tabta qur-aanka u tilmaamay inay u dhacdo marxaladaha kala duwan ee abuurku, wuxuuna caddeeyey in arrinkan aan la ogaan karin 1400 oo sano ka hor. wuxuuna sheegay in macluumaadkan uu siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaaha wax abuura oo keliyihi. tusaale ahaan qur-aanka waxa uu sheegay in ilmuhu marka uu abuurmo uu egyahay calaqa, waana sawirka ugu fiican ee markaa lagu eego qalabka scannerka sida uu ugu dhigo rixinka. xaggaa waxaa kaaga cad in qur-aanka kariimka uu si fiican ula jaan qaaday cilmiga sayniska ee maanta. kuwa aaminsan in qur-aanku koobigareeyay kutubyo ama ilbaxnimo hore oo jiri jiray waa inay ogaadaan in dad badani ay fikirkan maareen, laakiinse taariikhda mar walba waxay ku dhici jireen khaladaad badan oo markii dambe la saxay. haddaba tusaale ahaan waxaad u soo qaadataa 2 arday oo kala qishay imtixaan. ardayga laga qishay haddii 16 uu helay, ka qishay isna ma dhaamayo 20 ma helayay, wuxuu keenayaa un 16, waayo wuxuu koobigareeyay jawaabtii saxda ahayd iyo jawaabtii khaladka ahayd labadaba. haddaba haddii qur-aanku koobigareeyay ilbaxnimo hore, maxay ku dhacday in qur-aanka uu kala saaro saxda iyo khaladka? maxay ku dhacday in qur-aanka laga waayo xaqiiqooyin isdiidaya iyadoo nebi maxamed uu kalsooni ku qabo wax walba uu sheegayo inay run iyo xaqiiqo yihiin? waxaa qur-aanka ku jira in ka badan 500 oo aayadood oo cilaaqaad la leh cilmiga sayniska oo inaba aan isburinayna ma isdiideen. teknolojiyadda cusub ma beeninayso qur-aanka ee taas beddelkeeda way sii xoojinaysaa xaqiiqooyinka ku jira qur-aanka. tusaale ahaan waxaa ku jira qur-aanka in qur-aanyadu ay hadasho, waxaana si rasmi ah loo ogaaday sannadii 2009 iyadoo la adeegsanayo qalabka casriga ee wax lagu dhageystay in qur-aanyadu ay hadasho. waadaama dhowdhowda qur-aanyada aysan dhegta caadigihii maqli karin. waxaynu ognahay in wadamada qaarkood la mamnuucay in ilmaha layska soo xaaqo haddii uurku uu dhaafo 4 bilood, waxaana saynisku sheegay in ilmuhu markaasuu bilaabo inuu noolaado. waxaana ku qoran qur-aanka in ilmaha ilaahay koreeye uu nafta ku afuufo 120 maalmood marka uu ilmuhu jiro. xaggaas waxaa kaaga cad inaysan cilmiga sayniska iyo qur-aanku inaba isdiidayn. waxaana la sugay in la helo farsamada cusub ee ecographiga iyo skyneska iyo IRMta si arrinkan loo ogaado.
1400 sano ka horna waxay ku taalay qur-aanka. waxaynu ognahay in bilowgii koonka uu jiray oo keliya uuriya gaas duuban oo markii dambe qaraxyo ku bilaabmay. haddaba qaabkii uu koonku u asaasmay waxay ku qoran tahay kitaabka qur-aanka. sharaxaada waxaa loo yaqaan saynis yahanada reer cadaanku ay u yaqaaniin bing bong ama asaaska koonkana waxaa la fahmay qarnigii 20aad xagga qur-aanka uu ku qornaa qarnigii 7aad. waxaa qur-aanka ku qoran in shinnida dhidig ay gurto miraha u baxaa. haddaba muxuu qur-aanku uga hadli waayey shinnida kiisa dhidig oo uga hadlay shinnida kiisa laba uga hadli waayey? waxaana hadda la ogyahay in shinnida kiisa dhidig uu leeyahay unugyo aysan lahayn kiisa lab oo miraha uusan guri karin ama uusan ururin karin. waqti dheer ayay dad badan ay aaminsanaayeen in dhulku uu yahay mid fidsan oo sallaxa. qarnigii 1577 ayaa Francis Drake uu kusoo wareegay dhulka uu cadeeyay in dhulku uu wareegsan yahay. qur-aankuse 1000 sano ka hor ayuu cadeeyay in dhulku wareegsan yahay. intaas kuma ekaanay wuxuu tusaale ahaan usoo qaatay ukunta goroyada. haddii aad u fiirsato ukunta goroyadu ma wareegsana keliya ee waxay ka malaasan tahay madaxa kore iyo gadaasha dambe, waxaana lagu tilmaamay inay tahay geospheric. waxaana sawirada satellite-ka marka la eego la arkay in dhulku tabtaas uu samaysan yahay. ayaa ogaan karay 1400 sano ka hor in dhulku uu saas u samaysan yahay. waxaana la ogaaday markii satellite-yada uu la sameeyay qalabka casriga. suurtagal ma tahay in la ogaado macluumaadkan iyadoo aysan jirin teknolojiyada casriga qarniyo ka hor? qur-aanku wuxuu ka hadlaa culumta xidigiska, samaawaadka, cilmiga fiisigiska, cilmiga geologiga iyo biologiga iyo cilmiyo fara badan oo kale. waxaa kale oo ku jira qur-aanka mucjizooyin xisaabeed iyo mid sugaaneed. tusaale ahaan ereyga dhulku wuxuu ku jiraa qur-aanka 13 jeer, ereyga baduna 32 jeer. marka la isku daro waa 45. marka boqoley laga dhigana xajmiga baddu ay ku fadhido dhulkan inuu korkeeda ku nool nahay waa 170%. dhulkan aynu korkeeda ku nool nahay xajmigiisuna waxa uu dhanyahay 920 marka boqoley laga dhigo. waxaa xagga kaaga cad in qur-aanku ka yimid xagga alle oo qof bini aadami uusan alifin. teknolojiyada ugu casrisan adduunku ma awoodo inay samayso xawayaanka kiisa ugu yar ama ubaxa. ilaahay waxa uu abuuray ma abuuri karno ciddii ilaahay jiritaankiisa rabtaa inay ogaato. ha fiirfiiriso hareeraheeda, dabeecadda, insaanka, biyihii cadceedda, gadgadoonka habeenkii iyo maalinta sida ilaahay ugu abuuray oo weliba uu u sakhiray. waxaana cid walba ugu sugan aayaad cidda fikiraysa ee rabta inay wax ogaato.